kulantii wacan oo wanaagsan daawadayaal mar waliba aad joogtaan ku soo dhawaada war wixii dal iyo dibad bay naga soo gaaray oo aad halkan kala socon doontaan warka waxa ay la qayb gal doono saaxiibkay xalane qodobada aynu ku soo qaadan doono waxa kamid ah dagaalada ka socda ee waqooyiga Itoobiya waxa la sheegayaa dagaaladii 24 saacadood ka dhacay ee Tigreega lagu xasuuqay iyo ciidamada huwanta oo sheeganaya in ay guul weyn ka soo hoyeen shacabka dawlad deegaanka Soomaalida ayaa jawaab u waayay korneelkii sheegay inuu jamhad kaga dhawaaqay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dankaas iyo Soomaaliya magaalada Beledweyne ee maamul goboleedka Hirshabeelle waxa laga sheegayaa xaalad aad u daran iyaduna musharaxiinta mucaaradka dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen qodobadii ay soo saareen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka inay tahay waxaan u cuntabi doonin mucaaradka dawladda Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu halkan ku faahfaahin doonaa daawadayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe saar like nino saar qodobkeena ugu horeeya hadii aynu ku bilaabno daawadayaal dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya 24 saacadoodkii u dambeeyay dabcani waxa dhacay dagaalo aad u culculus oo ay foodos ku saareen kooxda TPLF iyo ciidamada huwanta ee halkaasi ku sugnaa waxay labada dhinac sheeganayaan guulo balse dhinaca ciidamada huwanta waxay sheegeen in guulo waaweyn ay ka soo hoyeen deegaano aad u fara badan ay ka saareen kooxda TPLF dabcan magaalooyinka hadda ee la magacaaway ayaa waxa kamid ah magaalada Dibirtaabur oo ay dhamaanba ay la wareegeen ciidamada dawladda sidoo kale dagaaladii 24 saacadood u dambeeyay dhacay waxa ay ku go'doomay ciidamada TPLF oo loo gacan sariyay dagaaladana waxay ahaayeen dagaaladii ugu cuslaa ee lagu qaaday kooxda TPLF waliba waxana loo qaaday dhanka dhul iyo cirbo aan dhahnay dabcan ay isugu yimaadeen ciidamada huwantaha ee meel waliba ay laga soo kala qaaday dagaaladii u dambeeyay hadii aynu dib ugu laawano waxa ku gacan sareeyay ciidamada ciidamada TPLF iyo dabcan ayagoo soo qabsaday magaalooyin aad u far badan haatan waxaad ogeedeen in lagu dagaalamayo gobolka Amxaarado ay sidoo kale magaalooyinka ay horay u qabsadeen kooxda TPLF ay ahayd magaalada Laabela iyo magaalooyin kale sida Weldiya oo ay ku sugnaayeen dabcan haatanba waxa la soo sheegayaa in dagaaladii aad u cuslaadeen ee darbaaxadii ugu weyneed ee abid ay Tigreey ka shalayaan ay ku dhacday dabcan ciidamadaasi halkaas ku sugan guusha ay sheegayaan xaqiiqada dhabta ah dabcan lama hayo balse xogta ay ina soo gaarayso waxa ay sheegayaan in magaalada Dibirtaabur gabi ahaan bay haatan gacanta ay ku hayaan ciidamada huwanta ee halkaas ku sugan dagaalkana looga gacan sareeyay kooxda TPLF oo halkaas iyaguna jab weyn aad weyn ka soo gaaray qodobkeena kale hadii aynu gudubno shacabka dawlad deegaanka Soomaalida ayaa warsaxaafadeed shacabka dawlad deegaanka Soomaalida oo maanta warbaahintu ay su'aalaha ka weydiinaysay korneelkii sheegtay in uu jamhad kaga dhawaaqay dawlad deegaanka Soomaalida korneelkan ayaa waxa uu yiri waxaan ku dhawaaqnay jamhad la dagaalami doonta dawladda hadda Itoobiya ka jirta uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed jamhadda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay ilaalinayso dastuurka Itoobiya ayna aqoonsan tahay dastuurka Itoobiya cid kasta oo dastuurka Itoobiya faragelisana inay dagaal xoogan ku qaadi doonto ay faraha sulatigi doonaan sidoo kale jamhaddan ayaa waxa ay sheegtay inay kooxda TPLF ay taageersan tahay fikirkooda ay aad u soo dhaweynayso cid kasta oo TPLF la dagaashanay ay iyaguna la dagaalami doonaan una arkaan cadawga koobaad ee Itoobiya jamhaddan ayaa maalmihii la soo dhaafay aad looga hadalhayay dawlad deegaanka Soomaalida oo la garanaynin meesha ay rarka ku furi doonto maadaama dawlad deegaanka Soomaalida intii uu soo jirayba ay dagaalo jamhadeed ay ka socdeen labadii sano ee la soo dhaafayna uu deegaanka Soomaalida noqday labada sano ee uu abid una dagaal ka dhicin u dhaxeeya laba ciidan oo ka kala tirsan dawlad deegaanka Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu yahay deegaan ku caan ah beeraha iyo xoolo dhaqatada hase yeeshee weligii nabad mayna soo marin ilaa labadii sano ee hadda ugu dambeysay mooyane shacabka deegaanka ayaa markay warbaahintu wax su'aalo ka weydiisay sida ay u arkaan korneelkan ku dhawaaqay inuu jamhad la dagaalantay Itoobiya uu ka furay dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku sheegeen arintaasi in ay tahay arin lagu qaslo maxaa yeelay shacabku waxay dheen anagu waan ka soo daalay la dagaalan Itoobiya lala dagaalamo ama dastuur Itoobiya kaba sii darama nin sheeganaya inuu dastuurka Itoobiya difaacayo shacabku sidoo kale waxa ay sheegeen ninkaasi inuu macquul ahayn waxa uu sheegay una dawlad deegaanka Soomaalida ka hirgelin karin
waxa uu asagu ku dhawaaqday uu jeebkiisu uun ku haysan doono hadday arrintaasi dhacdana uuba isku dayana inay gacantooda oola tegi doonaan sharcigana horkeeni doonaan. dhanka kale iyo Soomaaliya hadii aynu u laabano xaaladda magaalada Beledweyne ee maamul goboleedka Hirshabelle ayaa laga diirinayaa kadib markii ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ka tirsanaya oo qaadacsan qaabka ay wax u wado dowladda federaalka. sidoo kale waxa halkaasi ka soo baxay dhammaan xubnihii ka shaqeynayay magaalada ugu horeeya madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Gudlaawe. dabcan waxay ku dhawaaqeen in magaalada gebi ahaanba iyagu la wareegeen ayna haystaan ayna diidan yihiin kana soo horjeedaan xaaladda ama la dhaqanka sida ay ula dhaqmayaan dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabelle. dabcan ciidamadaasi hogaamiyahooda waxa uu sheegay in gebi ahaanba magaalada ay haatan haystaan sidoo kalena aysan aqoonsaneen madaxweynaha Cali Gudlaawe ee horey loogu magacaabay in uu yahay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle. xaaladaha haatan ba ka soo cusboonaanayo ayaa ah xaalado aad u daran maadaama ay halkaasi kaliya ku sugan yihiin ciidamada gacan buuxdana ay ku hayaan magaaladaasi oo idil. dabcan wixii ka soo baxo qodobkaasi dib ayaynu idinkaga faahfaahin doonaa balse xooga inaga soo intaas ayay ku kooban yihiin. musharaxiinta mucaaradka dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ayna ku qanacsaneen marnana aqbali doonin war-saxaafadeedkii ka soo yeedhay shirkii maalmihii dhaweydii ka socday magaalada Muqdisho uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya. mucaaradka ayaa waxay sheegeen warmurtiyaadkaasi inuu u janjeero dhanka madaxda dowlad goboleedyada kaliya una ka turjumaynin mucaaradku ajandahan waxa ay ku leeyihiin ama doorashada miisaanka ay ku leeyihiin. musharaxiinta ayaa waxay sheegeen inay qaadacsan yihiin wixii soo baxay marnana ayna aqbali doonin. hase yeeshee sidoo kale dowladda federaalka ayaa waxaad moodaa inuu madmadow dhexdeeda ka jiro maadaama uu ra'iisul wasaaraha uu ahaa ciddii matalaysay dowladda federaalka ee meesha shirka ku sugnaa iyo maamul goboleedyada. sidoo kale mucaaradku waxay sheegeen arrintaas in arrin la qaadan kara ahayn marnana ayna ka hirgelaynin dalka Soomaaliya ayna hor istoogi doonaan. sidoo kale waxaa la sheegayaa ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyadu inay martiqaad heer caalami ah ka heleen dalka Sacuudiga arrintaas oo la galanaynin falcelinta ay ka bixin doonaan xubnaha siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed. waa tahay daawadayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa war wixii daliidaataha caalamka inaga soo gaaray oo halkan idin kula wadaagnay intaan warkan war lamid ah ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.